maraykanka mar kale waxa uu muuqdaa in uu baraarug baaxad leh u iftiiminayo saaxiibadiisa galbeedka iyo la howlgalayaashiisa mugga weyn dareenna isdiidan ayaa in dhowaydba doc kasta oo danaha maraykanka ku xidhani ay dul hoganayeen washington si daruurtaasi ay meesha uga qaaddo deerkana u muujiso inuu yahay mid adag waxay qaadaysay tallaabooyin kala duwan si gaara waaxda arrimaha dibadda ayaa dhaqdhaqaaq weyn in dhowaydba ka waday gobolka. Good morning, everyone. It is a pleasure to welcome the NATO Secretary General Stoltenberg, Jens, friend and colleague, back here to the State Department and to Washington. xogahayaha guud ee isbahaysiga difaaca ee NATO ayaa socdaal ku tegay Maraykanka waxa uu la kulmay madaxweynaha Maraykanka waxa lagu soo dhaweeyay sidoo kale dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka waxa uu la kulmay xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka wada hadal dheer shir jaraa'id ayay u qabteen saxaafadda waxaana ay ka warbixiyeen ujeedooyinka isu imaatinkooda intii ay wada hadlayeen waxyaabihii ay diradda saareen waxay isla eegeen xaaladda gobolka duulaanka Ukraine ballaarinta NATO dhaqdhaqaaqa Indo-Pacific xoojinta la howlgalayaasha Maraykanka iyo in mar walbaba il togan lagu fiiriyo dhaqdhaqaaqa aysan dunidu mahdin ee Putin uu ka wado gobolka weliba duulaankii dunidu ay ku tilmaantay sharci darro baalmarsan qawaaniinta nabadda iyo xeerarka taageeraya nabadda ee ay dunidu ku heshiisay dagaaladii ugu dambeeyay ee ay galeen kadib xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo xogayaha difaaca isbahaysiga NATO labaduba waxay shir saxaafadeed ku dhex qabteen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda sidaanu idiin sheegnay waxay ka wada hadleen qodobo kala duwan oo muhiim u ahaa is-aragooda balse haddii aanu ku hormarno xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka oo dabcan hadal jeedinta qaatay ayaa ka hadlay xaalado kala duwan hadal jeedintiisa oo aanu in yar oo kooban ka soo qaadanay waxa uu kaga hadlayaa waxyaabo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka Maraykanka iyo Yurub duulaanka Ukraine iyo qorshaha ballaarinta isbahaysiga difaaca ee NATO waxa uu yidhi We'll strengthen our relationship with the European Union and with partners in the Indo-Pacific. We will bolster NATO's budget. waxaan xoojin doonaa xiriirka aan la leenahay midowga Yurub iyo la howlgalayaasha Indo-Pacific waxaan xoojin doonaa miisaaniyadda NATO waxaana dib u cusboonaysiin doonaa isbahaysiga awooddiisa difaac iyo ka hortag dabcan fikradda istiraatiijiyadeed waxay ka turjumaysaa waxa aan hadda la macaamilayno taasina waa muuqaal cusub oo amniga Yurub ah iyo go'aanka madaxweyne Putin ee ah inuu bilaabay dagaal aan macno lahayn oo gardarro ah oo lagu qaaday Ukraine hadda bishii afraad ayuu weli duulaanka sii socdaa President Biden announced a significant new security assistance package to arm Ukraine with additional capabilities. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka oo hadalkiisa sii wata ayaa docda kale waxa uu yidhi dadka reer Ukraine waxay sii wadaan inay la dagaalamaan geesinimo iyo xirfad aan caadi ahayn iyo taageero military bini'aadamnimo iyo taageero maaliyadeed oo ay ka helaan Maraykanka iyo waddamada adduunka oo dhan oo ay ku jiraan ku dhowaad dhammaan xubnaha NATO subaxnimadii maanta ayuu madaxweyne Biden ku dhawaaqay xirmo cusub oo gargaar amni oo lagu hubaynayo Ukraine oo leh awoodo dheeri ah oo hub horumarsan ah si sax ah waxay uga baahan yihiin inay iska difaacaan gardarrada Ruushka ee socda taas waxaa ku jira habab gantaalo oo horumarsan si ay u garaacaan bartilmaameedyada muhiimka ah ee goobta dagaalka ee Ukraine masaafo dheer tani waa sii wadida istiraatiijiyad soo bilaabatay xitaa ka hor duulaanka Ruushka waxaan si degdeg ah ugu dhaqaaqnay si aan ugu soo dirnay Ukraine hub iyo rasaas aad u badan si ay u diidaan gardarrada Ruushka iyo markeeda waxay ku jiri karaan booska ugu xooggan ee suurtagalka ah ee miiska wadaxaajoodka ee soo bixi karaya docda kale xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka waxa uu ka hadlay qorshaha ballaarinta isbahaysiga difaaca ee NATO waxaana sidoo kale uu yidhi iyadoo la tixgelinayo codsiyada Finland iyo Sweden ee xubinnimada NATO Maraykanku waxa uu sii wadi doonaa iskaashiga dhow ee aan la leenahay labadan waddan wuxuu ahaan doonaa mid ka feejigan wax kasta oo khatar ku ah amniga aan wadaagno waanu joojin doonaa oo sida loo baahdo waanu ka hortagi doonaa gardarrada ama hanjabaadaha gardarrada ah ayuu yidhi
dhinaca kale xogayaha gaashaandhigga isbahaysiga difaaca ee NATO ayaa isaguna ka mahad celiyay soo dhoweynta uu u sameeyey xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka. Thank you so much, Secretary Blinken, dear Tony. It's great to see you again, and thank you for your strong personal engagement for our transatlantic bond in this pivotal time for our security. And this is very much reflected in your frequent visits to Brussels. You are welcome back there again, but now I really appreciate this opportunity to meet with you here in Washington. waxaana docda kale uu ka hadlay doorka Maraykanka ee la xiriira jawaabaha muhiimka uu ka bixiyay duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo garab istaagga uu muujiyay shacabka iyo dawladda waddanka Ukraine. isagoo ka hadlay amurtaas waxa uu yidhi Maraykanka ayaa door aan laga maarmi karin ka ciyaaraya jawaabtayada duulaanka Ruushka ee Ukraine. hadda aan ku ammaano Maraykanka taageerada muhiimka ah ee aad siisay Ukraine taasoo isbeddel ku samaynaysa goobta dagaalka maalin kasta. waxaa kale oo aanu soo dhawaynaynaa xirmooyinkii ugu dambeeyay ee kaalmada militari ee uu dabcan dhawaan ku dhawaaqay madaxweyne Biden. tani waa muujinta hoggaanka dhabta ee Maraykanka. taageerada xooggan ee ay bixiyaan NATO iyo xulafada waxay gacan ka geysanaysaa in la hubiyo in madaxweyne Putin duulaankiisa gardarrada naxariis darrada ah aan la abaal marin iyo in Ukraine ay guulaysato.